dadweynaha u tiro badan oo ay hormood ka yihiin cuqaasha dhalinyarada iyo waxgaradka deegaanka gobolka Gabiley ayaa taageero ballaaran u muujiyay shirka beesha Ciise Muuse ay ku qabsan doonto deegaanka Baxarasaaf iyagoo sidoo kale sheegay inay garab taagan yihiin shirkaasi waxa kale oo ay cuqaashani carabka ku adkeeyeen in kaliya la wada leeyahay ganacsiga dekada Berbera laakiin aan la wada lahayn talada dekadaasi Berbera ay baaq u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dekada Berbera iyo dalkeenaba wixii maalgelin lagu maalgashanayo ee shisheeye ku maalgashanayo ciduu doonaba ha ahaadee waynu soo dhaweyn dekada Berbera in badan baan hadalkaa ku celin meesha waxa la wada leeyahay ganacsigeeda iyo manaafacaadka taladeeda cidda ilaahay meesha dhigay baa iska leh oo dhismo cusub iyo dekad cusub meesha lagu dhisayo oo sidii heshiiska marka horeba lagu shaaciyay ay noqonayso waxba kama qabnaan walaal qodobkan doonaya caawina ka hadlay intaas oo yidhi marxiib halkan waxaan doonaynaa caawina ummadda ugu iftiimino waxaan ka hadlaynaa dekada Berbera maanta tii wax lagu soo kordhinaya wax sax yahay waanu ogolahay shirka Baxarasaafkana aad iyo aad baan u barbar taaganay ayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Askar waxaan leenahay haddii maalgashi wax lagu soo kordhinayo waan ogolahay beesha Ciise Muuse ay qabsanaysay ku qabsanayso meesha goobta Baxarasaaf waanu taageersanahay kaana kiin jawaaynaa wax ku qabanayno waxaan kaga hadlaynaa dekada Berbera iyo maalgashiga dekada Berbera iyo maalgashiga ta kale shirka Baxarasaaf lagu qabanayo hadaan nahay uqaasha reeyay bilaana waan ag taaganahay waan berber taaganahay waan ogolahay waan ag taaganahay intaas ka baxay waxaan ka hadlayaa xaaladda gobolka Berbera ka jirta beryaha soo noqonaysa waa la shiraya madaxweynuhu shir buu ku soo baxay beeshooda intuu la shiray ciidamada hadlay maanta inuu yiraahdo Baxarasaafka laguma shiri karo wax laga xishoodo arrinta dekada Berberina haweenan hanti ummadan ka dhaxaysa gaal iyo muslim rumaysi iyo dawlad Soomaaliyeed oo la isdilay waa halkii kaareen lagu dhintay hiiliyo hooba annagu waxaanu diyaar u nahay wixii ka hor imanaya dekada Berbera hadii la maalgelinayo haddaan ku horeeyo tan maalgashiga dekada Berbera oo dawladeed oo dalka iyo dadka iyo deegaankaba manfaco leh haddii uu yahay waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol haddaan u gudbo dhinaca shirka runtii shirkan dee beel walbaaba shir bay qabsataa hadday tahay beelaha bariga kuwa bartamaha iyo kuwa galbeedka beel walbaaba shir bay qabsataa waana u madax bannaanay beesha Ciise Muuse shirka Baxarasaafka boqolkiiba boqol baanu ku taageersanay waana ku garab taagnay xaqaaqada soo noqonaysa dekada Berbera hadii dekada doonaya wax u kordhiyo oo intii ahayd wax u kordhiyo